السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضيع الميلكس توجتان هل كان يواربسي نيوز waxaad ku soo dhawaataan barnaamij Al-Jazeera ay ku soo bandhigtay xasuuqii loo geystay bulshada ku dhaqan Soomaaliland xasuuqaas oo ay fulisay dawladdii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Hadaba barnaamijkan oo documentary isla markaana TV-ga Al-Jazeera ka baxay 3 sano ka hor ayaa waxa aanu sida tan qormadan waa qormadii labaad emotional for me. waa mid aniga aad ii qiiro gelisa maxaa yeelay weli waxaa jira qaar ka mid ah lafihii iyo dharkii oo sugan diyaarkan kadib maxaa halkan ka dhacay ma aha waxaanu iloobi karayno waa wax aad u xanuun badan waana wax aanu u baahannahay inaanu xasuusanno waana qayb taariikhdayada ka mid ah casiis waxa uu halkan ugu yimid nin qasab ku aas lagu yidhi dadkii la laayay ayaa goor galaba yimaada niman madaxi military gurigayga iigu yimaade soo bax baa la yidhi waan soo baxay waa maxay baan idhi waxay dhaheen meyd baa arradii ka buuxa malka durdure kala aas cagaf la soo baxo soo soco cagaftimaan dabeetana soo saaray waan kule godadkan sii qotaa subaxdii intaan kala laho iyaan godadka sii qodaa saasaan godadka u qodaa saasaan u qodaa dabna isku roga sida iyo halkaana ku shubta halkaana ku shubta dee saasaan ku aasaa sida dhagaxa guriga la dhigayo iyo ku shubta isku rogadu halka dadkuna yaani uu halka ugu faraa badan leh dee ilaahuun qiyaasantay aan qofna tirin karin ayay hayd marka arrimuhu argagax leh oo inaan arago inaan maqal ayay haayeen waxaan islahaa anugu dad mala waxba kama noola haddaba dhibanayaashan waxaa lagu aasay boqolaal xabaalo oo aan wax sumadax aan lahayn kuwaasoo ku yaala agagaarka caasimadda Hargeysa halkanna waxaa ah xataa maskaxihii dhaawacnaa ee dadkaasi kuna waashay wixii ku dhacay ama ay indhahoodu arkeen waa mid ka mid ah dadkii u soo joogay dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee dadka loo geystay waxaanu yidhi dadku way ii imaanayeen iyaga oo ballanbalaya ama jiidaya dadkii dhaawacnaa si aanu u daaweeyo waxaana ka mid ahaa kuwii ku waashay garaacii loo geystay iyo kuwii ay bombooyinkii lagu garaacayay gaadhsiiyeen kuwaasi oo maskax ahaan u dhaawacmay ama ku waashay They were seriously mentally ill, kept at home in chains, most of them. So I ended up spending a good deal of time in the treatment of these individuals, almost in every neighborhood of the city. boqolkiiba 45 dadka magaalada degani sidan si ka xun ayay u dhaawacmeen dhibaatooyin badan oo ka dhashay ciqaabtii loo geystay dadkii waqooyiga Soomaaliya ku dhawaad 30 sano ka hor weligoodna si buuxda ugama bogsan doonaan dhibaatadaasi la mariyay xaqiiqdii waxaa rajo ah kamaan qabin inaan helo intii ka hadhay qoyskaygii manaan garanaynin inay cidi ka nooshahay iyo in kaleetoona markaa waa rajo dhigay waxaanan is-idhi iska ilow aabbaha iska ilow walaalaha iska ilow ummaddan oo dhan waxaan ku dhacay mana aha wax suuragal ah haddana oo sahal loo ilaawaayo laakiin waxaa laga yaabaa in wuxuun laga ilaawo dhacdadan taasina waxa ay dhacaysaa marka lala xisaabtamo kuwii ka mas-uulka ahaa xasuuq xanuunka badnaa Siyaad Barre laftiisu wuxuu ku dhintay Nigeria 1995 markii uu halkaa u baxsaday laakiin rag badan oo saaxiibadii ahaa oo aargudasho ka baxsaday ayaa dunida ku fariirsan waana la sheegay mid ka mid ah kuwii ugu naxariista daraa waa Tukey uu yahay mowduuc dadaal caalami ah lagu bixinayo sidii loo horkeeni lahaa cadaaladda tabayaaqadii 1980kii Cornel Yusuf Cabdi Cali sidoo kalena loo yaqaan Cornel Tukey wuxuu ahaa madaxa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana guutadii shanaad oo caan ah wuxuu ka faa'iideystay oo uu helay deganaanshiyaha dalka Mareykanka waxaan ognahay in wixii aanu ka qabanay Soomaaliya aysan ahayn mid aad uga duwan wixii midowga Sofiyeetku ka dhex waday Itoobiya waxa shiisa oo weynina ma jirin laakiin qof waliba oo ka tirsan dhinac walba way ogaayeen inay jirto ciyaar halkaa ka socotay waa Sofiyeetka iyo Ameerika and it wasn't always too comfortable. God, what you going to encounter out here
One of 300 Somali kuwanna waa qaar ka mid ah 300 oo ah saraakiisha ugu fiicnaa Soomaaliya oo loo xushay tababar khaas ah dalka Mareykanka gaar ahaan Kansas. Tuke ayaa ka mid ahaa saraakiishaasi halkaasi tababarka ku qaadatay kadib intii aanu dib loogu soo celin magaalada Gabiley ee galbeedka Hargeysa oo ahayd gobolka waqooyiga ee Soomaaliya. ciidanka uu madaxda ka ahaana waxa uu ahaa kii xasuuqii ugu adkaa u geystay ummadda halka ku noolayd sida dilka dhaca iyo ciqaabtaba. ilaa sanadkii 80aadkii ayaanu helnay korneelkan kani waa korneel Yuusuf Cabdi Cali sidoo kalena loo yaqaano korneel Tuke. sanadkii 1988 markii ay dagaaladii sokeeye marayeen halkii ugu adkayd ayaa la qabtay dhibanahan isagoo oo lagu eedeeyay inuu xaday taangi biyood. Farxaan Warfaa waxaa qabtay askartii uu hogaaminayay Tuke isagoo oo lagu eedeeyay inuu xaday taangi biyood. kadib markii la garaacay ee la jadilay ayaa waxaa gacantiisa ku toogtay korneel Tuke laftiisa. markii uu toogtay ayaa korneelku amar ku siiyay askartiisii inay soo tuuraan meydkiisa si mucjise ahna Warfaa waa uu badbaaday. kuwii siday meydku markii ay arkeen in uu ninkani nool yahay waxaa laaluushay dadkoodii oo yidhi iska daaya. ayuu aniga igu dilay Tuke xabad bay igu dhacday waatan halkan kale way iga dhacday baastoolad bay igu dhacday ilaa 5 xabadood. By the time the Barry regime collapsed in 1991, markii uu xukunkiisii barre dhacay 1991kii korneel Tuke wuxuu dib ugu soo laabtay wadankan Mareykanka isagoo oo waliba tababar kale oo dheeraad ah qaadanaya. 30 sanadood kadib ayaa Farxaan Warfaa oo ka badbaaday kumanaankii dhibanaa ee la laayay ayaa keenay dacwad madani ah halkaana waxa agagaarka Gabiley iyo deegaanka Arabsiyo oo halka uu asiis ka codsaday dhakhaatiirtii baaraya cadeymaha xasuuqyada iyo walibana ururada kale ee baaraya suurtagalnimada dembiyada dagaalka ee halka ka dhacay iyadoo ay ujeedadu tahay in la helo cadeyn qeexan oo loo adeegsan karo kiiska ka dhanka korneel Tuke. sidoo kale muhiim u ahaa qoysaskii dhibanayaashii la laayay waqtigii uu xasuuqu ka socday aagaasi. kadib 25 sanadood cidina ma garan karto halka sax ahaan kuwii la laayay dhammaantood ay xabaalaha kaga jiraan. And then cleaning. One of the main things that have to happen here is to dignify the dead and to separate the dead from the living. How you do that? Well, first getting the record straight. If you really want to get the record straight and you really want to have an open dialogue and for people to reconcile, although I hate that word, I don't think that reconciliation as such exists, but at least to have a less contentious coexistence, you'll need to really open up things. Huh? Yeah, I just wanted to, I'm trying to see what we're doing. That's all. I mean, it's just to understand what is happening because it is soft today. But opening up the past is not an exact science. The problem is that the machine with the weight. After more than 25 years, no one is precisely sure where the bodies are buried. Finding them needs more than picks and shovels. Maybe it will be easier for him to come like this and to start from here. I don't know. waxaa lagu qodayaa cagaftan si loogu soo saaro kuwii la laayay. Digging too deep could destroy the graves lying below, desecrating the remains and losing the evidence the team has traveled across the world to collect. The atmosphere is tense. waa markii la aqoonsaday eriyadii ay ku aasnaayeen ugu dambeyntii mid ka mid ah tiimkan baaritaanka wadi ayaa waxay heleen qayb ka mid ah lafihii meeshan ku jiray iyada oo ay jirto bulsho aad u caadifadaysan oo ku xeernaa xabaalahan la qodayay. xaaladda uu maraysay meel halis ah ayaa loo yeeray wasiirkii cadaaladda ee Somaliland uu u dejiyay dad iyo in si islaamku waafaqsan loo aasa dadkan la xasuuqay ee xabaalaha laga soo saaray. Allow the remains to be taken to EPAF's lab in Hargeisa and later be given a proper Muslim burial. لكن waxay lahayn si fursad iyo chance aynu inaguna ugu dhigo taariikh dambe markaad u noqoto madax suuqa beelahay afbaan lagu xasuuqo meesha cadeymihii walaga marmaan wada arkay meedka soo faqay sidii ay u noolaan loogu aasay macdarkoodii xidhay si markaa loo ogaado noocayo wuxuu dhaceen in la gubay in la toogtay in la xidhay in nolosha lagu aasay waxa soo saaraya waxa weeye aqoonta Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaadano dalafayo waxaan kaliya inaan ka caawino ogaano qaadno eegno analyze gareyno si loo kala ogaado waxay wax u dhaceen dabeetana aynu soo celino sidii ay ahayd shariicada islaamku dabeetana ayana loo hadhuutay karaabiyo loo aaso wadama sheekha bismillaahir rahmaanir rahiim awr baa halkan maray ayaa reerka idin loo baabiyay marka halka xaafadda iyada qoyska iyaga
tiyo sidaa tahay haddana annaga maanta wana lagu kaakicinayaa waanu ka samiray laba iyo 30 sannadood ayaa ka dambaysay nimankan mujrimiinta ahayee haddii ilaahayna waxaa sameeyena in sharciga lagu qaada waa wax meesha ku jira waa muhiim haddii de hadaluna iska noqotona dee ma hagaagsana kolkaa waxa weeye dawladdii Soomaaliland ay u dhinteen daraadood u dhinteen wax alla waxay u qabatay si gaar ah hadlaynaayo arrimahan anagay taala haddaba wasiirka cadaaladda rahay waan ogahay ilaahay baa caalamka inuu ku gaarsiiyo lafaanahan la tus waan arkayna waa sax taasi maalintii maan ooyine waan cabsanayo naftii xumayd baa kaasunbaa i dabartay daawaaba la yidhi iman karayne yaa dilay dee faqishdakumoha cid kale miyaa garanaysaa waxa leeyahay dawladii siyaad barre dawladii siyaad barrun baa hayn dadkan shacbiga wala leeynayo baas baa la marinay waliba kala mashxarada la lahaa tuma daawada mashxarada la lahaa daawada la lahaa inta dadku la soo qabtaa goob joog ban waxaan ahay hooyana lama ogolayn illa waa tooganayba kan xawal tooganay the relatives of the victims ayladihii dhibanayaashani la laayay runtii wax xog ah kama haysan waxaan aanu samaynaynay ahaantiina waxay ahayd wax aad u muruga leh markay dhacdadaasi dib ugu celiyeen xasuustoodii iyo ayaamihii